مركز تحسسنو سدح ذني سدح مر ولقى قوان هقادن سدح مر ولقى وح بلن قادن قوان كاغا سدح ذان مر مفوليه هدي قادته اسكايل عليه سدح ذان شير اما سدح ذان مر ان قوان قادته كو مركا كوباد waxay tahay marka aad faraxsan tahay in aad wax ballan qaado ee aad go'aan qaadato waliga ha isku dayin waayo waxaad ballan qaadi kartaa ama aad go'aansan kartaa wax aadan fulin karin wax aadan ka soo bixi karin wax awoodaada aan dhamayn baritan waxay maanayso in aad ku fashilanto wixii aad horay u ballan qaaday oo ballan qaadkaagi uu noqdo hal dacaad lagu lisay deetana adiguna aad noqoto beenaale oo buuga aad gasho adiga oo qalbiyan u rabo in ballantii iyo wixii aad qaaday aad fuliso ayay dani ka awood badinaysaa sidaa darteed marka aad faraxsan tahay ee lightka farxadda uu ku shidan yahay ee hawada aad ku jirto iska ilaali inaad wax ballan qaado ama go'aan aad qaadato tan labaad waxa weeye marka aad murugaysan tahay waxa weeye xaalada kula soo darsaan ila aadamuhu xaalada la soo darsaan waa wax iska caadi ah oo waxa weeye nolosha aadamuhu kamida sida darteed marka aad murugaysan tahay ee xaaladu ka qasan tahay ee jawigaaga uusan wacnayn ee waxa weeye murugta iyo rafaadka ay dhibta ku haysto go'aan ha gaarin go'aan ha qaadanin waayo haddii aad go'aan qaadato waxa laga yaabaa wax aad si fudud ku gaari lahayd in murugada iyo niyad jabka ku haya darteed aad go'aan gaarto deetana hadafkaagi iyo guushaadi iyo horumarkaagi uu halka ku lumo sida darteed marka aad murugaysan tahay ee waxa weeye xaalku ka qasan yahayna go'aan ha gaari tan saddexaad waxa weeye marka aad caraysan tahay ama marka aad xanaaqsan tahay ee cara ku hayso ha fal celin weliga cidii wax ku tiraado ama ku caydo ama dib ku geysato ha isku dayin marka aad caraysan tahay ee aad xanaaqsan tahay inaad wax waliba ka falceliso haddii aad wax waliba ka falceliso waxaad geysanaysaa wixii adiga lagu geystay wax ka badan tan labaad waxaad samaynaysaa ama aad gelaysaa qaladaad fara badan waxaana kaa dhacayo hadalla tiro badan Soomaaliduna waxay tiraahdaa hadal nin weyn ka dhacay waa qolof geed ka dhacday ama hadal nin weyni waa qolof geed ka dhacday sidaa darteed waxa kale yiraahdaan hadalku intuu afkaaga ku jira ayuu ammaan yahay haddii soo afkaada ka soo baxo oo diisa ka rogan waxa weeye dadka ayuu dhaxeeyaa sidaa darteed markaad xanaaqsan tahay aad caraysan tahay go'aan ha qaadan hana fal celin haddii aad go'aan qaatano waxaa laga yaabaa in dhibaato tii adiga kaa xanaajisay ee kaa caraysiisay ee aad tabanaysay mid 100 jeer ka weyn ka dhib badan ka xun ka fool xun in adigu aad geysato sidaa darteed marka aad caraysan tahay iska ilaali inaad fal celiso af iyo adin labaduba wax badan oo aad adigu ku farxi doonin ama waxa weeye marka carada ay ka baabado ee carada ka dhamaato waxyaalo badan oo aan ku farxad gelinayn ayaa wax ka fakanayo haddii markii aad caraysan tahay aad dhaqsaba ficil iyo go'aan iyo fal celin aad qaadato waad mahadsantahay saaxiibada qaaliga waxaan idin leeyahay gulyo gobonimo